waxaa ka mid ah qorshahanada Somaliland wixii siyaasadda isku hayna waa sideeda laakiin ma doonayo Soomaali wax kaga xiran in loo diido wax Soomaali kaga xiran in loo diido ma siyaasadda waan ka heshiinayna waan wada hadlaynaa dariiq baan isu maraynaa laakiin wax waxtar iyo horumar ah in la yiraahdo waxbay sheegteenoo aan dhinaca geeska gelin oo wixii dib loo soo celiyo maanta la isoo wareegana waxaan ka doorbidaya wixii Soomaalida kaga xiran waxaan qabaa in dowladda federaalka ha noqoto ama hay'adaha caalamiga ha noqoto in loo fudaydiyo oo xaaladda siyaasadeed iyo horumarka la isku xidhin ta siyaasadana raggeeda heli doonta haddii la yidhaahdo taana waxaa leeyahay intaas aadeeya waxaa ka mid ah qorshahanada Somaliland wixii siyaasadda isku hayna waa sideeda laakiin ma doonayo Soomaali wax kaga xiran in loo diido wax Soomaali kaga xiran in loo diido ma siyaasadda waan ka heshiinaynaa waan wada hadlaynaa dariiq baan isu maraynaa laakiin wax waxtar iyo horumar ah in la yiraahdo waxbay sheegteenoo aan dhinaca geeska gelin oo wixii dib loo soo celiyo maanta la isoo wareegana waxaan ka doorbidaya wixii Soomaalida kaga xiran waxaan qabaa in dowladda federaalka ha noqoto ama hay'adaha caalamiga ha noqoto in loo fudaydiyo oo xaaladda siyaasadeed iyo horumarka la isku xidhin ta siyaasadana raggeeda heli doonta haddii la yidhaahdo taana waxaa leeyahay intaas aadeeya waxaan hadalkayga kusoo warariyo mashruuca farsamadu misabaasir aad buu fiican yahay laakiin waxaan idinka sugaynaa fulintiisa iyo sanadka dambe haddii aan nafta ilaahay lagu sino inaan si cad isugu nimaadno oo wax la taaban karo aan ka dhigno wixii aan xoogaan ka qaban eedda intaan ku leedahay aan qaadano idinantiina aad qaadataan